niman yahow murti iyo maahmaah markii la yiraahdo murti iyo maahmaah mid waliba meel bay ku saleysantaa waxayna ugu saleysantaa mid walba waxay tilmaamaysaa marka ayada ah waxa jira oo muuqda bay tilmaantaa waxa weeye waxa jira maanta Soomaaliya ka jira wax u garnaqanaada waxay tahay waa 6 nin lixdaas rag gustiisa 6 u qaybsamaa 6 rag u qaybsamaa hayba Soomaaliya maanta isku haysata wax u garnaqahayana ma jiraan waa yaa u garnaq doona marka refe kalkaalna waa meel udub xujo iyo anna waa ka labadaasna waa meel dhibka jira marka 6daas nin oo laba isu raacsan baa Soomaaliya maanta isku haysata dhaxdooda yaa ku dhumay marka waa leeyahay Soomaaliya ku maamulada laba dibi meesha ay ku dirto ku hardanto cawsba ku gacan gala way laba dibi asardiyeen waa direen cawski waa lagu istaago meeshaas baa ku baxa meesha ku lumay markuu gacan galay marka dadka shacabka ahaa shacabku dad iska masaakiin ayagu ma yaqaanaan ujeedada iyo meesha loo jeedo u jeednayaan marka maamada meesha laga yiraahdo laba dibi meel ay ku dirtay cawsba ku gacan gala cawski marka shacabka ah dibaato marka Soomaaliya gabigeeda maanta waxa ay la hergal laadahay oo ay ka harsan laadahay waa 6daas nin oo ninban uu ku lamaan yahay weeye shacabkiina waa cawski oo cawsku wuxuu xalay laba diibaasha ku dirtay cawsba ku gacan gala waa run waa cawski taas marka wati shacabka asaguna uu ku gacan galahay meesha dibku wuxuu haystana waa shacabka waxa isku ka yahay waxay tabarka in ilmihiisi eerkiisi wixiisi deedan inta geystay meel labada jooga bulshada isku lumin haya oo dantiisa kaliya buu wuxuu u lumin hayaa intaas oo qof oo Soomaali ah marka waxaan dhihi lahaa oo talada aan hadda anu Soomaaliya ku talin lahaa wara nin raga ka hal raaco oo refe kalkaal iyo udub xujo iyo anna waa kan warkooda hal iska daayo saasaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliya inuu fahmo iyo arrinkaas inuu fahmay fiican tahay oo uu refe kalkaal iyo udub xujo anna waa kan ay warkooda iska daayaano mas'aalaadda meesha ugu jirto waa nin raga oo waxba qabanana iyo nin raga kalkaal oo ku raacsane warooda labadaas raaca wixii ka soo hara oo labadaas raacsanayn waa kuwa refe kalkaal iyo udub xujo anna waa kan dadkoodii refe kalkaal dadkoodii iyo udub xujo anna waa kan Soomaaliya waxaan u maandar uma hayaan intaas ayada ah baan Soomaaliya idin dhihi lahaa anigu marka aan saas leeyahay macnaha waan fiiriyay waan arkay waa ii soo baxday asalba maanta nin raga iyo nin raga kalkaal way yar yihiin Soomaaliya waxay u baahan tahay refe kalkaal iyo udub xujo iyo anna waa kan macnaha marka saas hadda aan ku soo qaadanay waagii hore oo macnaha dadku qarniyadii hore dadku uu reemiga u badnaa yimiga ayaa waxa la oran jiray nin raga waa ninka markay martidu timaado waa war martiba timiday war dhowrto la qaado wax la yiraahdo dhowrto waxa la yiraahdaa xis haddaan in soo koobo 6 waxay tahay raggu 6 uu ka koobay waxa weeye koow waa nin raga kalkaal refe kalkaal udub xujo anna waa kan nin raga waa ninkii yiraahda waxbaan qabsanaa waxaan hagaajino waxaan habayno ummadda aan la simanno war aan dalka yaga dadka yaga nabad ka dhigno oo wax u qabanno nin reer kalkaal waa ninkii ku raaca oo yiraahdo waa runtaa waa sax alla ilaahay waa ila taana nin reer kalkaal baa ninkaas macnaha ninkii fikir sax keena oo loo baahan yahay waa nin raga kan ku raacana waa nin reer kalkaal taas waa nin raga iyo nin reer kalkaal waxa jira iyo refe kalkaal nin raga iyo nin reer kalkaal waa in sheegay moogtaa waxa jira nin refe iyo refe kalkaal refe waxa la yiraahdaa midka markii wax fiican hal qabta la yiraahdo ama warsaan hal yeelay yiraahdo ay salaqo manayno yiraahda waxa ay sheegayaan wixii hore oo ku jira ka fiican wax macnaha ma aha macnaha uma muuqato wanaag sheega wanaag oo muuqato refe la yiraahdaa
رفع كالكال بودي ورهبل هذا صوت لبعض أنا وين أنت السجي بكون راعي رفع كالكال رفع كالكال رفع راعي إلا رفع وحي وكمر ما وكان مرن وكون راعي محل راعي رفع كالكال رفع كالنا وكوا ودم حجو وعمدك أن ميلنا أقولين والصوارد أي ما أنت أبلغتها ميلنا ما أقول نبض مرحبا wanaag ma rabo dhibku markuu yimaado dadka saa hor cabaada waa udub xujo waxaas waa muuqdaan anna waa ikan waxa weeye dadka danta khaaska ilaalsan haya oo waxaas danta guudaba ay uga muhiimsan tahay danta khaaska oo anna waa ikan taagan oo leh anagi baa hadii saada yeelo anagu wax ku noqon mayno waxaas anaga noo fiicanay anaaba waxaas u baahan anaaba ka macna anna waa kii ma la yiraahdaa marka waxay tahay u garnaqi doona lixdan nin oo Soomaaliya maanta isku haysata oo ninba nin taageersan yahay ninba nin uu raacsan yahay yaa u garnaqaya macnaha saddex nin waa saddex haysata saddexna saddexaas kala taageersanta waa nin raga iyo nin rakalkal waa meel refe iyo refe kalkal waa meel udub xujo iyo anna waa ka labadaasna waa meel dhibka jira marka saddex lixdaas nin oo laba isu raacsan baa Soomaaliya maanta isku haysata dhexdooda yaa ku dhumay marka waa leeyahay Soomaaliya ku maamulada laba dibi meesha ay ku dirto ku hardanto cawsba ku gacan gala way laba dibi asardiyeen waa direen cawski waa lagu istaago meeshaas baa ku baxa meesha waxa ku lumay markuu gacan galay marka dadka shacabka ahaa shacabku dawska masaakiin ayagu ma yaqaanaan ujeedada iyo meesha loo jiidaba u jiidnayaan marka maamaha meesha laga yiraahdo laba dibi meel ay ku dirtay cawsba ku gacan gala cawski marka shacabka ah dhibaato marka Soomaaliya gabigeeda maanta waxa ay la hergal laadahay oo ay ka harsan laadahay waa lixdaas nin oo ninban uu ku lamaan yahay weeye shacabkiina waa cawski oo cawsku wuxuu xalay laba diibasha ku dirtay cawsba ku gacan gala waa run waa cawski taas marka waqti shacabka asaguna uu ku gacan galahay meesha dhibku wuxuu haystana waa shacabka waxa isku ka yahay waxay tabarka nin ilmihiisi eerkiisi wixiisi deedan inta geystay meel labada jooga bulshada isku lumin haya oo dantiisa kaliya buu wuxuu u lumin hayaa intaas oo qof oo Soomaali ah marka waxaan dhihi lahaa oo talada aan hadda anu Soomaaliya ku talin lahaa wara nin raga ka hal raaco oo refe kalkal iyo udub xujo iyo anna waa kan warkooda hal iska daayo saasaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliya inuu fahmo iyo arrinkaas inuu fahmay fiican tahay oo uu refe kalkal iyo udub xujo anna waa kan ay warkooda iska daayaano mas'aalaadda meesha ugu jirto waa nin raga oo waxba qaban anaare iyo nin rakalkal oo ku raacsane war labadaas raaca wixii ka soo hara oo labadaas raacsanayn waa kuwa refe kalkal iyo udub xujo anna waa kan dadkoodii refe kalkal dadkoodii iyo udub xujo anna waa kan Soomaaliya waxaan u maandar uma hayaan intaas ayada ah baan Soomaaliya idin dhihi lahaa anigu marka aan saas leeyahay macnaha waan fiiriyay waan arkay waa ii soo baxday asal bamaanta nin raga iyo nin rakalkal way yar yihiin Soomaaliya waxay u baahan tahay refe kalkal iyo udub xujo iyo anna waa kan macnaha marka saas hadda aan ku soo qaadanay waagii hore oo macnaha dadku qarniyadii hore dadku uu reemiga u badnaa yimiga ayaa waxa la oran jiray nin raga waa ninka markay martidu timaado waa war martiba timiday war dhowrto la qaado wax la yiraahdo dhowrto waxa la yiraahdaa xirsi ana oo neef kila la sabta lagu shubo dhowrto la yiraahdaa war dhowrto la yiraahdaa nin raga markuu yiraahdo war martiba timiday war caanaha la keenay war hal soo sooray nin raga ka wuxuu dhigi waa runtii martida aan soorno war waa runtii ninkan hebel waa runtii buu dhihi asaga ku raaca rifad wali waa tan wuxuu oranayaa ilaahay gurigina bi'aana la keenay ma macna inay noo dhibteen ma waxba noo dhibteen maxamed tiin ogta mar waa chaqambir waa baal saqfad la yiraahdo chaqambirkaasu marka hoos ku gumnaasaa refe kalkal baa ku raacay walaahi hebel waa runta meeshu labada nin oo martida soorno u dhihi tiri raaci lahaa wali hebel waa runta saas fiican udub xujo yaa soo booday wuxuu leeyahay hadii wax la bixinayo aniga la isiyo hadii waa taqfad waa geed xunaan rag ahayn ragna aqoon hadii wax la bixinayo aniga la isiyo ana u baahnay anna waa kan asla wuxuu leeyahay
وأنا بكم بدني كواس على مالي معنا ومقياسنا مركان دمد أيضا أحد سيد الله أيضا أحد بالصومالية إسكو هاي ستة أنت أيضا صومالي فهمتوا